السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو هذا SWS show ومعلن سبتية بشا جنايو شانيو لباتن كذا سنة كلابada كونيو آفر يتوبنكا برنامج كينا ما أنت واحد لسه مقالة داركيسان ولوستون ومقالة لبات وجوين قبل كمين وحين كويشة برتمها قبل كني magaaladan ayaa waxa la aasaasay sanadka markuu ahaa 1768 iyadoo markii ugu horeysay ay soo degeen lamaane ka soo guuray gobolka Massachusetts. magaaladan ayaa waxa loogu magac daray nin ganacsade ahaa oo la oran jiray Job Lewis, sidaasina markii hore loo yiri Lewistown. dhulka magaaladan ay ku fadhido ayaa baaxadiisu waxay gaaraysaa 35.54 square miles ama 92.5 kilometer square, iyadoo dadka ku dhaqan lagu qiyaaso 36,460 oo ay 3,500 oo kamid ah yihiin Soomaali. magaaladani ayay markii ugu horeysay Soomaalida soo degeen sanadkii 2006. Soomaalida ayaa markii ay halkan yimaadeen waxa ay la kulmeen dhibaatooyin badan oo uga yimid dadka ku dhaqan magaalada iyo waliba meeyarada kala duwan oo ay magaaladu yeelatay sanadyadiina soo dhaafay. sanadka markuu ahaa 2002 ayuu meeyarka magaalada oo markaasi uu ahaa Laurier Raymond waxa uu u qoray Soomaalida warqadaasi oo uu sheegay Soomaalida inay la hadlaan eheladooda ama saaxiibadooda kale Soomaalida ku soo qulqulaya magaaladani, una sheegay inay ka joogsadaan soo guurista magaaladani. bishii lixaad sanadkii 2006 ayaa nin cadaan ah waxa uu masaajidka Al-Nuur ku soo dhex tuuray madax doonfaar ama khanziir sida loo yaqaano, iyadoo waqtigaasi ay muslimiinta salaad ku jireen. At the Lewiston Auburn Islamic Center spent part of the morning on their knees, not for their usual prayers, but to erase any traces of the pig head that rolled into their mosque around 10 o'clock Monday night. We were all praying, focused into the prayers, most of us looking down, and all of a sudden what we had was a big bang. That bang, a frozen pig head hitting the floor. Police say 33-year-old Brent Matthews threw the head into the mosque from an open door. He's been cilmiga laba qayb ayuu kala baxaa, mid maadi ah iyo mid diini ah. midka rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu nagu yiri talibul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslima. waxa cilmiga in la barto la raadiyo waa waajib waxa uu ku yahay muslimiinta. marka ka waran qofkii canugiisa intuu school dugsi magaaladan ayaa bulshada degan boqolkiiba 95 waxa ay yihiin dad cadaan ah oo ay awowyaashooda ay asal ahaan ka soo jeedaan wadamada Ireland iyo Faransiiska, halka ay shanta soo hartay ay yihiin dad jinsiyado kala duwan kala haysta. dadka Soomaaliyeed oo mar walba jecel inay ku dhaganaadaan diintooda iyo dhaqankooda ayaa waxa ay isla markiiba bilaabeen inay masaajid yeeshaan. inta aysan Soomaalida halkan soo degin ayaa waxa ay ahayd magaaladani meel muslimiinta aad ay ugu yar yihiin amaba aysan deganayn. markii aad magaalada dhex marayso ayaa waxa aad wado walba kaaga muuqanaya kaniisado aad u waaweyn, midaas oo ku cadeynaysa in ay magaaladani tahay meel ay masiixiyiintu ku badan yihiin. masaajidka Al-Nuur waxa uu ku yaalaa wadnaha ama bartamaha magaaladani Lewiston. masaajidka ayaa waxa uu yahay meesha kaliya ee ay Soomaalidu ama muslimiintu ku kulmaan, dhibaatooyinkoodana ku xaliyaan, caruurtoodana ay wax ugu bartaan. masaajidka ayaa waxa diinta islaamka ka barta arday aad u fara badan oo kor u dhaafaysa ilaa iyo 300 oo canug. waxa kale oo dugsiga dhigta waalidiinta qaar kamid ah kuwa magaaladan Lewiston degan. waxa aan maanta ku booqanay masaajidka Al-Nuur Macalin Mahdi ayaa waxa uu kamid yahay macallimiinta masaajidka caruurta ugu dhigta quraanka. macalinka ayaa waxa uu fasal taxfiidul quraan u dhigaa arday isugu jira wiilal iyo gabdho oo gaaraya ilaa iyo 40 arday. macalinka iyo ardadiisa ayaa waxa aan ku booqanay kala fasalkooda iyagoo ku guda jira waxbarashadooda.
waxa aan weydiisanay macallin Mahdi inuu fursad noo siiyo inaan wareysi aan la yeelano si aan wax uga ogaano fasalkiisa. culimada Soomaaliyeed ee masaajidkan casharada ka akhriya in uu kelimad yar noo soo jeediyo ku saabsan fadliga uu leeyahay barashada Quraanka Kariimka. Bismillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء يطيعوه جميعا لأطاعوه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء في الدنيا عسرا وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن وخشيته تبارك وتعالى في الغيب والشهادة فإن تقوى الله أزين ما أظهرتم وأكرم ما أسررتم قال الله جل ذكره ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله تقوى الله أيها المؤمنون وصية الله للأولين والآخرين ولا يترحم إلا لأهلها وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه أيها المباركون فهذه تأملات قرآنية من كلام رب العالمين تبارك وتعالى أيها الطلاب أولا وحيدين دارنا عبد الله سبحانه وتعالى ربي إن لقى حشوده ربي هل لقى حبصد مرك الله ما أها إن أفهنتان مع المهدي كعبصد ما ربي إذن أميوي خالقهم ورازقهم
كي أمدن أبوري كي أمدن إرزاقي كي سميستي كان مركا دم تكسون نولين دونا بالبعث والنشور كان حسابته اللي هو استاجي دونه مركا انت قيامه اللي هو تجي دونه كو حسابين دونه كاس عبسيديسا لو باهنيه توا عبسيد رب سبحانه وتعالى ومحي كو كوبانتahay sida culimadu sheegeen بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه إلهي أمردي سو دوب لو قاto دوب ما تقانا you have to take the command of Allah oo dhamaan إلهي أمرkiisa la qaato way laga tagin midna wuxuu ka reebayna laga haraw ثانيا waxaan idin sheegaa mas'aladan quraanka barashadeeda fadiila iyo ajir weyn baa ku sugan quraanka in la barto fadli badan baa laga helaa in la akhriyana fadli fara badan baa laga helaa nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam waa kiyiri inni la aqulu alif lam mim harfun alif lam mim qofan dhihi karin kuma jira u maleynaya hadda saddex xaraf Soomaha ma dhahayo nabigu hal xaraf waay maya alifun harfun ولكن أقول وحن ده يابر ألف حرف ولام حرف وميم حرف ألف كوا هل حرف لام كنا وهل حرف ميم كنا وهل حرف والحسنة بعشر أمثالها حسنة يا أجر كلا قرينا طبعا لاب كيد بالقري هل كيبا طبعا بالوجود فن إلى 700 ضعف بالوجود فنيا ذاتك القرآن كبرت إلهي وحكوت المامي إن يهين أهل الله وخاصته بالوجود شجع إلهي ذاتك سي خاص كها وأسجلها وكلام كيس يقاني ورك إلهي يقاني علماء وحيران قفك الرب إنه إلهي الله الله حضارت if you wanna talk to Allah read the book of Allah أخري بين القرآن كالله أخري ما أنتوا نوحوا كله ساس يساس قصته كل شيء وحقوي قيامة إمام بكله وأرين سجنوي أباها باره أنقو كله وأرين سجنوي هو يدا باره أنقو وأرين سجنوي درجة هذا أنا وحيران تهاي فوضى مو أخري سيد القرآن أنت أخرني سيد كحيرانت نينك مثلا ما أنتوا كبل البقرة أخري إلا والمحسنات يا نينك أخري اسكو أجر ما نينك أخري عما يا معناها تبارك لحظة يا نينك ربنا سكري أخري اسكو أجر ما نينك وكلا أجر بدينهن قيامنا مركو تجوا حال قفك قرآنك وحاه جامينيسا سورة البقرة وآل عمران به جامينيس النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قفكنا وحال اقرأ أخري ورتل كلاردك كما كنت ترتل في الدنيا سيدا الدنيا مركز جوكت أدو أخرنيس هو أخري فإن آخر منزلتك الآية التي تقرأ فيها قرق هذا يماشى أتكود هو ينسيد ودقيسيد وآيات وقودا بيسال الليه مركزه بغرين تكبر الله وكر أسعوني قفك إلى أوكتك جنة الفردوس بصعونية قرآن كفل قاسوا ليه تنكل قرآن كقفك برتوحى اللي وقاده وحكى الله دبا يمجره nothing else وحكى دبا يمجره هداد هما كشقيسي هداد كشقينين لم بد جلسة بي ما جلست معايا لي كلام كانوا إلهي كوو كلمني هداد برت إخلاص وإلهي درتي هداد برت لكن عبسي معلم ما كعب سنة هو ين كعب سنة معها وإن إلهي درتي أبرت أود فهنتي القرآنكو إن قيامك شفيع دونه القرآن حجة لك أو عليك النبي عليه الصلاة والسلام حليه قرآنك وقيامه وكو قبسا ووحو كل إله أنتو إبرتي ومع المهدي أبري وهو يديس إبرتي وأبيه لدى ذلك يولميي قرآنك ما أخرين يا هبيني مالين بقى أما وحو كله إله هو برتو ويقول لقني يعني كان جنسي وكو شفاعة وحليرة إرجع يقول تو الله بقولتي مركز ولا قرآنك إله يو نكان ويقول عمل فلي ويأخرني ودذالي ويقول رقمي حلاشي حرامته كلبرتي أنا وحاس سببها إله السبب يقدك بقول الجنة إله كوجي إله جنة كوجينيا تذكر القف القرآن كبرت أبي هو يدي مركز دنتان علماء وحي قبان إنه تذكر أنتوا يرى آخر يراه وحكفي عن إنه أصدقوا آخر يدهن أبها دول أنت هو يدمت أنت القرآن كآخر سدات لا إله أبيه ونحرس أبيه هو يدي قدام بداف بفضلك وكرمك وجودك وإحسانك إله بفضل هذا الكلام المبارك هذا الكلام بركة إله قدام بداف دات له مع سلامة أجرك وحسن يدك كل علي مركز أبها درجة كر لو قادي هو يدا قبرك درجة كر لو قادي جنة لوجو بشارين مركز هذا أين لك حقيقة إماد أرنتن بدعاء ولدك الصالح بالله ويلكاجي أما قبل هذا القرآن كأدبرتي يا كوسو دعيسو ساسا معناها كوقاني أيها المباركون مركز صلاة كجرتان اللهم كم من عبد صالح لك في السماء يسجدك ويعبدك ويرجوك ليس لي رب سواك ولا إله غيرك أسألك وأرجوك إله اللهم اغفر لي أبي اللهم اغفر لي أمي سجود كلها إلهنا الشرح وقلبي وكل شرح يا قرآن كفر يا نينكو كو أدقها تبا أفضانيا
قال الله تعالى ربي وحلي أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين كو قلبي قوضا لغو شرحي قرآن كإيمان كإسلام لماذا لغو شرحي وحي كفل لبديهن وكونا أكسيهم كو قلبي قوضا وأنققي أيقو مسمنا كو قلبي قوضا أنققي قرآن كاللود ديدي وأولئك في ضلال مبين كو اللمي وقواسو إله إليه سبحانه وتعالى وعوما لنا أنت نذقف عذاب رب مجرى سوما everybody wanna go to paradise سوما if you wanna go to paradise you have to learn the Quran through the معلم and listen to him and obey to him sidaa kale hooyo iyo aabbo dadka culimada masaajidka in la joogo ka xishooda qadariya sharfa waxa kale iska dhaaf culimada markay culimo kale ku imaad ninka ka weyn ninka kale hadda kor waxaan garanayaa wadaada salaad ku jiray nin weyn waayeel oo ahaa rag waaweyn oo doctora ah meesha fadhiyo dhakhaatiir waaweyn ah insha Allah waa googeyna marka salaadii wadaadkii maghrib ay ahayd qiradii hoos u dhigay wadaadkii kala u sheegay marka ninka u sheegaya waa nin weyn oo doctor ah nin weyn oo caalima wuu xasuusiyay wadaadkii wuu xasuustay oo ka baxay markii laga baxay lagu ka dhunkaday raali ha buur maxaa inuu fiiriyo diidaya macnaha uu yiraahdo wiilkan ka yar maxaa ku dhacay macnaha wuu saxay khalad kuma laakiin waa xushmada iyo karaamada qofka marka quraanka bartaas loo xushmeeyay diinta islaamka qofkii barta hatta gaalada markii loo tago hadda dadka iska caadiga iyo dadka culimada ay xushmeeysa ma taqaana dadka culimada ay xushmeynaysa laana wax ogyihiin ninka inuu xaq wada ogyihiin marka welcome bayleen waa soo dhaweynayaan hadaa rabtaan sharaf iyo wanaag iyo cizi iyo karaamo wax oo dhan quraanka ku jirta quraanka hala barto fadligaas uu leeyahay aakhirana waa lagu liibaani adduunkana waa lagu liibaani inna hada alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam quraankan ilaahay qoom badan buu ku hanuuninayaa qoomna waa lagu baadiyeenayaa way wayadacu bihi aakharin kuwa kalena dhulka uu dhigaya oo ku istaagaya oo macnaha ku dhaqan ma hayaan marka ayaga way dulaysanayaan adduunka markay joogaan ayagana aakhiru ka abaal ya baalkiisa helayaan oo aakhira loo cadaabi marka quraanka hala barto insha Allah taala macallinkana hala maqlo waxaan aan ka baxna sheekan dad waaweyn aan noqono waxa maanta oo dhan leen ku qeylinaya ma aha you came here for reasons oo ma for what to learn in the Quran you have to learn this خلاص قرآن كاغن آخر هذا كتاب كاغن آيديس آخر نين كان هكو مشغولين كاكلا هكو مشغولين هذيك بس يسفير إن شاء الله تعالى هذيك أنا ونساني معلم كو نساني أبو ونساني هويا ونساني لكن هذا قرنيني واحد هل كان أتمد ومحامرك وما علماء فقهاء وحيرة وما يكون الغراب له دليلا يمر به على جيفة الحمار قفكي معناها في فيريا تكها ما تقانا بالك تكها ليلة مدو qofkii qaaq buu yiraahdo qofkii daba ordo daba kaca baqti buu dul geynaya marka dambe hadaad wax kasta tiraahdo waan fiirinay maanta darbigan fiiri inta u joos goormad barani you waste your time you waste macallin time kiis waad baqsaarisay adiga kaadi waad khasaarisay adigoo la safaaraya la kala galbaday waxa faa'iido ma yaalo macallinka maqla nin kastana aayadii ku adkaata macallin aayadan maxay tahay la yiraahdo macallinka hal laga saxa macallinka afkiisa ka qaata quraanka هذا بالله التوفيق صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداءنا واعداء دينك يا رب العالمين sheekh saalax oo ah imaamka masaajidka al-nuur ama al islamic center ayaa waxa aan su'aalo ka weydiinay waqtiga la aasaasay fasalkan tahfiidul quraanka oo macalinkan uu ka yahay macallin mahdi waaya jazakallahu khairan kulli su'aasha waxaan fahmay waxa ku saabsan tahay sidii dugsiga asaaskiisii iyo macnaha sidoo ku bilowday awalan insha Allah waxaan filayaa masaajidkan Islamic Center ku muddo badan buu soo jiray taqriiban ilaa 2003 ayaa meeshan la gaday ilaa ummadda intaas islaamka waxa weeyaan way ku soo cibaadaysanaysay dacwaduna way u socotay dugsiguna kolba maartay oo wuxuu qaadan hayay isbedel iyo horumar taqriiban كلاس كان يسقى أو كلاس كهذا تحفيظ كفر المشان يلا معلم كانوا كي معلم هذه جزاه الله خيرا وحان أساسني بشي أبريل سنة 2013 وحان في لي حلقة أسبوع تأسيس كشوها وحان أترجى لي إنه نقضي جلاس تحفيظه أو تقريبا إن شاء الله تعالى كصوب حان أرضي مرلا وإن شاء الله إلى إنك سأرجعني بريت إن نقضان إمامية ذا مساجد ذا مريكا كنورت أمريكا إن شاء الله لوستون إن شاء الله مساجد إمامية يا مسلمين تماما باهدود إن الدولان إلى هيدا كيسة كقيم قادم دونا دور نكويا دونا الحمد لله وحويان وقت كاسيركا وشيخو
galaaskan waday wax badan baa ka hirgalay arday badan baana maartay waxa horumar samaysay waxaan rajaynaynaa insha Allah inay soo bixi doonaan sanadka 14ka ardayda hordhacooda marka taqriiban systemka loogu talagalay iyo sidii loogu talagalay wuu ku socdaa waan okay insha Allah sheekh kaalin inta leeg ayuu waalidka ka qaadan karaa maartay inuu canugan ay u fududaato xifdinta quraanka kariimka maxaa waalidka looga baahan yahay inuu canugiisa uu u sameeyo si canugan ay ugu fududaato xifdinta quraanka kariimka waayo bismillaah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam waalidku doorka uu ku yeelan karo waxa weeyaan kulli door aad iyo aad muhiim ah oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu saaray يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس مركي آيات صدفيرسو إلهي سبحانه وتعالى والدك وحكسر أمر إن أي مارت علمه وضع تربية ديسي مسؤولية ديسي دورك إساقا مركا وحلو بهاي والدك إنه إنتو داداس علمها تربية كتيرو إن أي وقت كفا إيديان وإيجيان ميلاه تعليمتا الدين تسلام كله برناي هدي أيسان دعين أرنكا إساقا أنا وحاوي علمه وقت يسي تربية مركو تقو ولمو معناه حوي علمي هو أتكان هيا والله عردنا وكلنتو أنت جلسان تهاي ولا اللي حين كرو أياف يعني مارتي تربية إمارتي دين الولد على هدو أتكان أو أرضي فورتين إمارتي واحد كسرية وجارو وأتكان يسمى تربية تيسا مرك أنت كواسيسا نفري طبعا أنت كواسيسا أيا مارتي الربع إن المهلو فايدي دورك أسجها والدك حلبا كسرية هاي دورك لبعض علمه هو حوي دورك والدك سمين كرا تشجيع معناها dhiirigelin waxa la yiraahdo inuu sameeyo oo macnaha tacliinta la jeclaado oo wixii maartay xagga lacagta xagga maartay awaal marinada kaleento waxyaabaha noocaas oo kaleenta ee tashjiic sameyn kara hadii zaman kale isaga xoogaa niyada u dhisi karo in maartay waalidku uu ka qayb qaato macnaha haday noqoto macalinka iyo la shaqeyntiisa waajibaadkii loo diray ardayga in maartay magaranaysa aad iyo aad looga shaqeeyo arintaas iyada waa muhiim ah waxaa sabir inay maartay u yeeshaan waalidku intuu ilmaha isaga ka gaarahayo makaan uu maartay marka isaga uu isdabari karo inay arintaas iyada ay sameeyaan waana macallin baan ahay anigu waan ogahay waalidka ilmaha haduu doorkiisa dayaco macallinka horumar ma gaarsiin karo marka ilmuhu inta saacadaha uu guriga joogo hadii cashirkiisa diyaari iyo maartay hawshiisa aan la waxaynin meesha fasalka haduu yimaado ilmihii waxa weeyaan waxba macnaha wax weyn kuma diyaarin karo marka guriga ayaa muhiim ah in lagu soo diyaariyo ilmaha oo cashirkiisa iyo wixiisa hawshiisa laga la soo qayb qaato